والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد maanta oo bisha ay tahay 11 shirkan jaraa'ideen qabanay bangi ahaan waxaan ogeysiinaynaa mujtamaca dadweynaha reer Somaliland iyo inta ku taxalluqda sarifkaba in bangigu shalayto uu bilaabay sarif oo suuqa gelinayo oo muddaana laga sugayay ballanqaadyo horena aanu sameynay aniyo wasiirka maaliyaddu maantana aanu shalaytan aanu bilownay maantana aanu ku xijinay wadi doonana insha Allah maalin walba ilaa inta hoos ka dhacayo oo soconayo waan hawshaas waanu ku tala jirnaa in badanna waanu u soo xamxaamaneynay hase yeeshee hawshu waxay bilaabantay shalayto maantana waanu ku xijinay idinku soo aragteen taas marka waanu sii wadaynaa dadkana waxaan ugu sii bishaareynaa inaanay lacagtooda aanay daadinin ay dadka iska baayacaan oo dadkan maartay warka inta u sheegaan oo iska qaadanaya ay wadaan annaguna waan wadaynaa insha Allah ilaa intuu ilaahay ka qadaro waan wadaynaa awoodeeda waanan dadaaleynaa shacbigana waan u maqanahay markasta heegan baan u nahay wixii kale marka ka soo baxa na wayn u wada joognaa insha Allah waan wadaynaa taasan doonayay soo gaarsiiyay maanta waxaa sheegteen in sicir bararku aanu ku koobnayn sarifka lacagta isku bedelka Soomaaliland iyo shilinka Soomaaliland iyo dollarku kaliya balse aad ballan qaadeen maraakiib raashin ah oo micishada dadka lagu jabiyo halku ku dambeeyay arrinkaas ma dhageysan malaynaya warkaas wuxuu ahaa wasiirku wuxuu waan kari karnaa wasiirku arrinta inaanu sameeyno ayaanu kari karnaa haddii ay waxan isbedeli waayaan waan ku tala jirnaa baa hadalku walina waa sidii way taagantay taas وابن راشنا إن شاء الله إما كهرت الصرف كأيام إما كديارنا هاي صرف كأيام أو كالهرين أرمه إما كأرنتين كوشنا وأرنت الصرف كا وأنا نبلوني وأنا نوضينا إن شاء الله أنتي لهاي نوجا قدره ونوضينا. مركات العوضات قادين ما واحد صارتين العقد دولار أوفر بدن بتسوق كوسي ديسنسي شيلين كسومالان وقيمة وياش. تاو عدين. ها waxaan lacag baan soo deynay sariflayaashina waan ka sarifnay lacag badan waan ka xareynay waan wadaynaa waan ka xareyn doonaa insha Allah ilaa inteen leeg buu soconayaa qorshahaas inta alla ka qadaro timing oo qoonmayna laakiin waan wadaynaa baan kuri muddo wadayna hore sidaan oo kale waxaad u sheegteen in lacag suuqa aad gelinaysaan ilaa haddana wax isbedelay ma jiro dollarkii suuqa joogay aad buu yaryahay taasana keentay dollarku kor u go'aanka hadda aad ku dhawaaqaysay shirkan jaraa'idada ku sheegtay inaad lacag cusub suuqa aad gelinaysaan maxay kaga duwanaan doontaa talaabooyinka hore u qaatay waxay kaga duwanaan doontaa runtii waad aragtay oo shalaytii maanta suuqu hoos buu sii socdaa waana dareemeen dadka intii suuqa ku jirta inta aan ku jirin waxaan leenahay ogaado oo soo ogaada marka waxay kaga duwantahay tan waan sii joogteynaa markaad suuqa u saartaan dollarka idinka ka bangi ahaan qiimahaad ku sarifaysaan waa intee waa inta suuqa suuqa ayaanu de ka hooseynaa suuqa kolba hoos u socdo inuu ka maraya suuqa anu markasta suuqa ma ka hooseynaa sixirka ma qabanayno sixirku ma sheegayo laakiin marba inta hooseeyo waan ka sii hooseynaa arta aad baad u mahadsantihiin inaad naga wareysataan xaaladda suuqa iyo kolba sida ay wax marayaan banku wuu soo daayay lacag badan oo dollar shalay iyo maantaba waanu wadayaa ilaa shilinka Soomaaliland in tutayo yeelanayo wuxuu marayay 9300 oo shilin wiigan gudihiisa maantana wuxuu marayaa 9000 oo shilin qorshaha ugu tala galay bankuna ilaa 8000 siday sheegayaan ilaa ay ka hooseeya wax badanna suuq waa laga dareemi karaa maanta waad arkaysaa suuqi cash ma yaalo qof waliba wuxuu hayaa maanta dollar idinku waa dareemi kartaan waxaanu aad ugu rajaynahay ninka askariga ah ee shilinka Soomaaliland qaata inuu wuxuu taro islaanta yar ee hooyada ay tamaandhada iibinaysa inuu shilinkeedu wuxuu taro inanka shaqaalaha ee dawladda u shaqeeya ee lacagta Soomaaliland qaata inuu shilinkiisaasi wax u qabto marka banka aad baan ugu hambalyeynaa qorshahan ay sameeyeen ee shilinka Soomaaliland loogu tayinayo haddii aad aragto kulli maanta waad soo martay man marinaya suuq iyo joogtahay shalay gaari weyn baa halka la soo jeedo suuq gabiisa wixii kaash yaalay waa la raray
maantana waxaa lagu amray sariflayaasha wixii kaashaya inay baanka geeyaan oy markay Soomaaliland geeya shilin iyaguna dollarka ay soo qaataan marka suuqaad ka dareemi kartaa inuu dhaqdhaqaaq badan ka jiro oo shilinkina hoos u dhacay uu tayo yeeshay marka waxaan had iyo jeer anoo kaga faa'iideysanay jaaniskan dadka baayac mushtariga sida dadka iibiya ahayn bariiska sonkorta bakhaarada inay kolba ku jaangooyaan kolba halku marayo oo ay ka ilaaliyaan dadkooda ay u tulaan annagu ka sariflaan haddaan eegno waayo annaga marka dadka ugu badan ee khasaaro marka ugu badan annaga dantu waxay noogu jirtaa isagoo shilinku meel fadhiista ama uu jabo oo deetana aanu dadka deetana rayd fadhiya aan wax kaga iibino waayo khasaaraha ugu horreeya annaguna soo gaadhaa ka sariflayaal ahaan iminkana annagu waxaan aaminsan inaanu baanka la shaqayno oo aanu kolba lacagtu soo daayo iyo qiimaha kolba waxay noo soo jaraan aanu ku shaqayno